iyadoo la filayo Brito iyo saad dambe booqasho inuu ku tago madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump wadanka Shiinaha caasimadiisa Beijing iyagoo halka ku ballansan inay isku arki doonaan madaxweynaha wadankaasi Xi Jinping ayaa waxaa la sheegay in Shiinuhu ay u diyaariyeen qorshe la yaab leh in markaa ay u degeen hadafka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha iyo waxaan marka laga soo tago Trump waxa uu doonayaa inuu Shiinuhu hordhigo inay Iiraan ku qanciyaan iyadoon wax dagaal dhicin dhinacyadu isku dhicin inay Hormuz furto oo marinbiyoodka Hormuz uu ahaado sidiisii hore oo markaa maraakiibtu ay iska gudbaan culayska marinbiyoodka Hormuz uu ku hayo caalamka gaar ahaan dawladaha khaliijka ee dariska la marinbiyoodka iyo dhibaatada uu sababay iyo wixii oo dhan marka maadaama Shiinuhu uu ka odayeeyo xaaladda Iiraan lana aaminsan yahay cidda ugu badan ee garab siisa Iiraaniyiintu inay Shiinaha yihiin ayaa marka waxa uu wataa ninka la yiraahdo Trump qorshaha marinbiyoodka Hormuz iyo arrimaha Iiraan nimankanu marka waa ogaadeen Chinesku waa niman maxnaa waay imtixaan waay markaas waxay iyaguna u diyaarsadeen qorshe la yaab leh haddaba markaan idin tuso saaki telefishinka Al Jazeera ayaa qorshahan xogtiisa soo helay isagoo ka soo xigtay telefishinka CNN haddaba marka waxaa ciwaan looga dhigay warbixinta Hormuz oo lagu bedelanayo Taiwan telefishinka CNN ee wadanka Mareykanka ayaa ka hadlay arrimahan oo markaa ay isku wajihi doonaan Trump iyo madaxweynaha Shiinaha Xi mas'uuliyiin Mareykan ayaa laga soo xigtay in Shiinuhu uu ka shaqeynayo qorshayaal uu markaa la doonayo Trump haddaba Shiinuhu waxay doonayaan inay markaa cadaadis saaraan Iiraan si loo furo marinbiyoodka Hormuz oo markaa ay ku bedeshaan muwaafaqo heshiis nabadgelyo oo munaasab ku ah Iiraan halka dhanka kale Trump isaguna loo sheegi doono inuu markaa isaguna Taiwan arrimaheeda ka baxo waxaa leeyahay Hormuz muqaabil Taiwan macnaha Hormuz ayuu ku bedelanayaa Taiwan waa dal sheegtay inuu gooni uga go'ay Shiinaha laakiin Mareykanka ayaa aad u taageera huba loo geeyaa diyaarado wax walba Shiinuhuna marka waxay uga dhagan tahay Taiwan dalweynaha Shiinaha inuu ku soo tarsado